kulanti waxaan daawadayaal muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsan yahay jasiirad ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn caalamka. haddaba dunideena maanta waxay ku xiran doontaa bartamaha badweynta Hindiya. waa jasiiradda quruxda dabiiciga ah ee ku manaystay ee Madagascar. jasiiradda Madagascar juqraafi ahaan waxay dhacdaa qaaradda Afrika, waxaana la sheegaa jasiiradda Madagascar inay tahay jasiiradda afraad ee caalamka ugu weyn. badka ay ku fadhida jasiiradda Madagascar laba jibaar badka ama masaaxada ay ku fadhida boqortooyada Britain. jasiiradda Madagascar waxaa guumeysay isticmaalkii Faransiiska, wuxuuna guumeysanayay muddo 62 sano. waxay madax bannaanideedii heshay sanadkii 1960. luqadda rasmiga ah ee jasiiradda laga hadlo waa luqadda Faransiiska. jasiiradda Madagascar waxaa daaha laga qaaday ama la helay 2000 sano ka hor. xilliyadii u dambeysay jasiiradda Madagascar waxay luminaysay kaymaheedii dabiiciga ahaa sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo xaaluf baan ay ku hayaan bini'aadamku. culimada juqraafiga waxay maleynayaan in xilliyadii hore jasiiradda Madagascar ka mid ahayd dhul weynihii Hindiya, laakiin ay kala go'een muddo ku siman 55 milyan oo sano ka hor. Antananarivo waa magaalada ugu weyn ahna caasimadda waddankaas. jasiiradda Madagascar waxaa ku nool dadyo kale asal duwan sida Carab, Afrikaan, Faransiis iyo Indoneesian. madaxdii xilalka ka soo qabtay jasiiradda waxaa ka mid ahaa boqorad lagu ninaasi jiray boqoradii waalnayd, waxayna jasiiraddaas ka talinaysay muddo ku siman 33 sano. intay xilka haysay waxay si adag iskaga diiday dadaaladii ay reer Yurub ku doonayeen inay ku qabsadaan jasiiradda Madagascar, waxayna muddo badan la diriirisay baabi'inta mashruuca gaalaysiinta oo ay dabada ka riixayeen gumeystihii reer Yurub. sidoo kale waxay dagaalo baan la gashay boqortooyooyinkii ku hareeraysanaa ee dariskeeda ah. waxaa la sheegaa muddadii ay boqoradda ahayd in dadyoogii addoomaha u adeegsan jiray dhisidda qasriyo waaweyn gudaha Madagascar. qasriyada ay dhiseen waxaa ka mid ah qasri weyn oo ilaa hadda laga helo gudaha Madagascar, waana qasri ay ilaa hadda boqodaa dadyooga dalxiisayaasha ah. madaxweynihii ugu horreeyay jasiiradda Madagascar kadib gumeystigii wuxuu ahaa Yalabir Siranana, wuxuuna xilkiisii ku waayay kacdoon ka dhacay dalkaas sanadkii 1972, waxaana xilligaas talada dalka la wareegay militariga waddankaas. Madagascar waxaa laga helaa xayawaano kala duwan oo dhifi naadir ku ah dunidan, isla markaana ay adag tahay meelo kale laga helo, waana deegaan ay jecel yihiin dadyoga xiiseeya daawashada duurjoogta. jasiiradda Nusibi waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu qurxoon Madagascar, isla markaasna ay u tamashla tagaan dalxiisayaasha iyo dadka gudaha waddanka ku nool. waa jasiirad ku wanaagsan ciyaaraha biyaha dhexdooda ah iyo safarada kalluumaysiga. Madagascar waa deegaan laga heli karo buuro, taagag, dooxooyin cagaaran iyo xeebo loo tamashla tago. cimiladu waa mid qoyan oo diiran inta badan, khaasatan gobollada waqooyiga, halka gobollada koonfureed ay yihiin gobollo qalalan oo kulul. dadka reer Madagascar waxay aad u isticmaalaan geed lagu magacaabo marijuana, waana geed ay waxyaabo badan u isticmaalaan. Madagascar waxay caan ku tahay ciidda guduudan, waana ciid qani ku ah maadooyinka birta iyo aluminiyamta. dhaqaalaha ugu badan ay ku tiirsan yihiin dadka reer Madagascar waa wax soo saarka beeraha, kalluumaysiga iyo dalxiiska. sanadii 2002 ayaa laga bilaabay in luqadda Ingiriiska lagu dhigo iskuulada waddankaas. jardiinka Isalow Park waa mid ka mid ah jardiinooyinka dabiiciga ah ee ugu waaweyn uguna muhiimsan Madagascar. sanadkii 2015 Madagascar waxay meesha ka saartay sharci dhigayay in la daldalo dadyoga ku eedeysan dilalka. Madagascar waxay leedahay goobo taariikhi ah oo u soo jiida dalxiisayaal badan. magaalada Murmanka waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan jasiiraddaas, waana magaalo laga dhex helo dhagxaanta qaaliga ah. sidoo kale waxay magaaladaas ku yaalla madaxafka caanka ee booliiska. gudaha jasiiradda Madagascar waxaa ka dhacay kulan kubadda cagta oo hal ciyaar gudaheeda la iskaga dhaliyay goolashii ugu badnaa abid taariikhda kubadda cagta, waana 149 gool. ciyaartaasi waxay dhacday sanadkii 2002.